السلام عليكم كلنتي wanaagsan ikhyaaray mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada barnaamijka habeen wanaagsan hadal iyo howraarsan himilo toosan halkani waa Kalsan TV waxa wali taagan xiisad ka dhalatay arinta la xiriirta in dawladda Soomaaliyeed ay si qarsoodi ah u dhiibtay uguna gacan gelisay dalka Itoobiya Cabdikariin Sheekh Muuse oo ku magac dheeraa qalbi dhagax dawladda ayaa ku adkaysanaysa go'aankaasi oo dhaliyay carab badan oo ka timid dadweynaha oo meelo kala duwan ka dhigayay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan go'aankaasi iyagoo ku dhaleecaynaya go'aanka ay qaadatay dawladda Soomaaliyeed haddaba habeen wanaagsan caawa waxaan uga hadli doonaa go'aanka dawladda iyo falcelinta dadweynaha waxaana marti inoogu ah Maxamed Xuseen Cadow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee degan magaalada tan London isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda waxaana uu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed ee aaminsan in dawladda Soomaaliyeed marka laga hadlo arintani ay u dhaqantay si qeyr mas'uulnimo ah ama mas'uuliyad darro ah marka ay timaado sida sharciga dalku uu dhigayo isla markaana waxay tahay arrin horseedi karta in qaanuunku shaqeyn waayo sida dawladdu u dhaqantay marka la eego habeen wanaagsan Maxamed ku soo dhaw barnaamijka habeen wanaagsan ayaan leh ugu horeyn barnaamijka hadaan u galno su'aasha ugu horeysa waxay tahay sidee u aragtaa adiga marka laga hadlo habka ay dawladdu uga falcelisay dareenkii shacbiga inta aynaan u gelin sharciyada dalka waxay arrintan ka qabto bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan shaki ku jirin oo cad in arrinkani ay dad badani ay ka dhiidiyeen ay diideen qaabka ay wax u dhaceen waxaan kala saaraynaa laba qolo ayaa arrintan diidan arrin waa dadka shacabka oo aan siyaasadda ku jirin oo shacabka ah qolana waa qolo siyaasiyiin ah oo mucaarad ah marka anigu waxaan ka hadli karaa aniga ma ihi shakhsi mucaarad ah oo siyaasadda ku jira laakiin dareenkii waxaan fasiri karaa dadweynaha maxaa keenay buuqa dadweynaha inay dawladda mucaarad ku noqdaan waxaan ogsoonahay waddanka Soomaaliya waa waddan muddo badan dagaal sokeeye uu ka jiray dagaalkaas sokeeye wuxuu keenay in la kala aamin baxo in la helo hoggaan lagu kalsoonaado ee ummadda dhan ay u midowda waxaa dhacday laba jeer kaliya ayaa la ogolaaday hoggaan ay dadku aaminsan yihiin dad badankiisa labada hoggaanna waxay ahaayeen 2006 maxkamadihii dadkii Soomaaliyeed waxay u ogolaadeen inay hoggaamiyaan waxayna ay kasbadeen shacbiyad badan balaan fiirino qodobadii ay ku kasbadeen shacabka Soomaaliyeed inay hoggaamiyaan arrinka ugu muhiimsan wuxuu ahaa waxa la socotaa in hoggaamiye kooxeedyadii magaalada Muqdisho iyo gobolada qaar ku joogay inay dhibi jireen maxaabiis yay u dhibi jireen waxay u dhibi jireen dalka Itoobiya iyo wadamo kale ayay u dhibi jireen taasi dagaalka ka dhidiyeen iyo dagaalka ay ku qaadeen dadkii shakhsiyaadka hawshaas fulinay ayay ku kasbadeen shacbiyada Soomaaliyeed waxa kale ayadana jirta nasiib u helay in hoggaan aaminaad ay siiyaan ummadda badankeeda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii ay kalsooni siiyeen ay u arkayeen shakhsi dulinimada sharaf xumada karaamada xumada Soomaaliya dadka Soomaaliyeed habsatay in uu ka saari doono sidoo isagu muujiyay marka hore sidoo isaga muujiyay marka ma aysan filanayn in shakhsiga shalay lahaa waxaan la xisaabtamayaa dadka cadawga ku ah ummadda Soomaaliyeed waxa ay doonaan waddankayga kama subin karaan markii ay maqleen shakhsi ayuu Soomaali ayuu u dhiibay dawladda Itoobiya arrintaasi waxay ku noqotay shacabka arrin lama filaan ah falcelinta dawladda ee arrintaasi marka dadkii sida u kacay ee dareenkooda muujiyay waxaysan filayn ay ku dhaceen dawladdu sidee uga falcelisay dadkii runtii waxaad moodaa dawladdu inay maaragtay ay hal koox kaliya inay saartay focuska ay waxay iska dhaadhiciyeen arrinkan inay ka dhidiyeen shakhsiyaad siyaasiyiin ah kursiga ayaga ay ku fadhiyaan doonayeen runtii laakiin arrinku waa ka weeyahay sidaas marka waxa dareenka ugu muhiimsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalayto wuxuu meesha ku fuulay dareenkii shacabka dareenkaasi oo aan raalli ka noqon dawladii asaga ka horreeyay marka waa in uu maanta ka turjumaa dareenka dadka ما إنه يرهدو سياسيين معني الحكومة ترهدو شخصيان كما هدلاي شخصيات دران قارلة أو قرن دمسة
ayaa arrintan wato oo arrintii bulshada wixii ay ka caroodeen iyagoo dhanba laga soo qaaday aan laga soo qaaday shakhsiyaadka doonaya mucaaradka oo raba kursiga ayaga ay fadhiyaan xukuumadda inay bedeshaan laakiin arrinka waa sida waa ka weyn yahay aaminaadda run ahaantii marka taa lafteedu waa khayr mas-uulnimo waxaan ka dareemayaa in ay inay ka wanaagsanaan lahayeen sidai hadda u fikiraan inay ufikirin ummadda maysan aaminin ra-iisul wasaare ummadda maysan aaminin xukuumadda ummadda maysan aaminin taliyaha nabadda sugidda ummadda waxay aamintay ay hoggaan aaminaad siyaasadeed siiyeen maxamed cabdullaahi farmaajo isaga ayaa dadkan soo xushay dadka laakiin waxay xusheen maxamed cabdullaahi farmaajo dadku isaga yaqaanaan marka isaga ayay xusheen cid kale maysan dooran isaga ayay aamineen hadiyad ayay u siiyeen aaminaadda siyaasadeed ayay u siiyeen waxaana iga muuqato inuusan run ahaantii hadda kadib hadduu sixi doono ma ogi laakiin hadda kama soo dhalaalin aaminaadaasi ay shacabku ay u aamineen waay horta waxa dhacay oo ah in qof Soomaali ah lagu wareejiyo Ethiopia ma wax sharci ahba oo dalka yaala loo maray mise waa wax kale oo aynan garanaynin shakhsiyaad gaar ah ay afduubeen jawaabtaasi runtii ayaga ayaa dadka u sheegay war saxaafadoodkeedii ay soo saareen bishan hadda aan ku jirno 6 September waxay ku yiraahdeen waxaan warbixin ka dhageysanay laba hay'adood labada hay'ad waxay ahayd hay'adda amniga iyo wasaaradda cadaaladda hay'adda amniga waxay cadeysay in shakhsigani uu ahaa shakhsi muddo dheer dambi ka galay waddanka iyo dadka Soomaaliyeed sidaa darteed uu ahaa nin dambiila ah miyaysan xaq ahayn shakhsigaasi wuxuu dambiga ka galay waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed sida sheegeen waddanku dambiga ka galay wuxuu ahaa Soomaaliya dadka Soomaaliyeed xaq ma lahayn in loo sheego shakhsigani dambiyada uu ka galay waddanka iyaga iyo dadka iyaga dadka xaq u lahaa waxay ahaan shacabka taa ma aysan dhicin arrin la abuuray noqotay markaa arrin la abuuray way egtahay ma caddo waxa kaloo jirto haddii shakhsigani uu muddo dheer sida ku cad war saxaafadoodkooda uu dambiye ka galay sida dad badan waddanka dambiye ka galay loo wada og yahay saxaafadda iyo dawladda loo og yahay ayaan shakhsigan u baran lahayn dadku waxay ku soo baraarugeen 26 bishii Agosto ninkani magaciiso dhan cid taqiin ma jirto laba dhagax qalbi dhagax marka waa dambi la abuurayo oo la rabo in lagu maran habaabiyo maxaa la yiraahdaa dareenka dadka ayay ku lahaantii ma ahan wax bulshada ka gadmay hadday noqoto xitaa ay noqoto inuu dambi ka galay dalka waxaad leedahay waxba ka sii xunba in haddana dal kale loo dhiibo sababta dadku dambiga ka galay iyo waddanku dambiga ka galay waa shacabka Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin in loo sheego noocyada dambiyada uu galay dadka uu laayay waa in loo sheego ayaga xaq u leh marka arrintan waa arrin abaabulan oo laga yaabo dad gaar ah inay afduubeen wax sharciga kulliba ma run ahaantii annagu horta sideedaba sharciga ay ayaga u adeegsadeen ayaan fiirino qodobka labaad wuxuu oranayaa leeyahay wasaaradda cadaaladda warbixinta aan ka dhageysanay waxay noo cadeysay in shakhsigan aan u gudbin karno dawladda Ethiopia ayagoo salka dhiganayo heshiis ay soo gashay dawladda ka horeeyay laba heshiis ay soo gashay mid ay gashay 2015 midna waxay gashay 2016 marka waxaad moodaa dawladda inay iskaga qaldan yihiin heshiis iyo sharci heshiis walba ma noqdo sharci wuxuu noqdaa markii baarlamaanka la geeyo oo aqaliyad buuxda lagu helo ayuu sharci noqdaa waxa kale ayadana isweydiin mudan heshiiskan dawladda idinka soo horeysay ee soo gashay maxabis Ethiopia ma ugu gudbisay hore ma ugu gudbisay hadaa taariikh raacso bino waxa nooga cad inaysan heshiis jirinba aysan gudbin waxa kale ogsoonahay in madaxweynaha uu leeyahay la taliye xagga sharciga in ra'iisul wasaaruhu uu leeyahay la taliye sharciga in xukuumadda ay leedahay xeer ilaaliye qaran la taliye sharciga hay'adda nabad sugidda inay leedahay la taliye xagga sharciga maxay ula tashan waayeen shakhsiyaadkan sharciga oo u sheegi lahaa awoodda dastuuriga ay leeyihiin inay gudbin karaan iyo inaysan gudbin karin
aad iyo aad waa su-aal meesha taalla wey kolleyba dadkaa fasiran doona marka heshiiskii wad marka heshiiskii soo bandhigay marka ma ahayn heshiisyo xitaa haddii dib loo raaco meesha waxaa ka muuqday heshiisyo ku salaysnaa dawladdii hore lagu eedeeyo shaksiyaad haddana lagu sii eedeeyey adoo weliba antix raacay hadalkaagii ahaa in dawladdu doodii dadka iyo tabashadii dadka iyo dareenkii dadka loo raray oo ay u rartay inay koox yar ka dambeysay isla raggii kooxda ahaa ayaa meesha lagu xusay runaantii arrin kale oo muhiima iyadana inay shacabka soomaaliyeed ayna ogyihiin ay jirto laakiin aan raba inaan xasuusiyo waxaan ognahay dawladdan waxay isku xil saartay in maaragtay maxaabiista soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dabaddaba in daryeelkooda ay ka fikirto waa hawl fiican waa waajib saarnaa tusaale waxaan usoo qaadan karnaa in 114 maxaabiis ay dawladda ay ka soo daysay Ethiopia waxay kale ay subisay waxay heshiis la gashay dawladda India ayadana maxaabiis Soomaaliya lagu soo daynayo waxay heshiis la gashay dawladda Seychelles taa waxaa dheer in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu tagay xabsiga dhexe ee Muqdisho markuu arkay tirada dadka ku xiran wuxuu saaray guddigaas oo soo baaraya shakhsiyaadkan meesha ku xiran xaq bay ku xiran yihiin mise xaq darre ay ku xiran yihiin guddigaasi waxay soo baareen in dad badan ay ku xiran yihiin xaq darro taad waxay marka keentay in dad badan laga soo dayay maxaabiista oo muddo dhowr sano ku xirnaa xaq darro meesha ugu xirnaa taasi ummadda Soomaaliya meel walba joogta arrinka ficilka aad baa loogu farxay haddaba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu arrintaas suubinay wuxuu ogaa awoodda dastuuriga uu leeyahay oo ku leeyahay dawladda federaalka ma iska soo dayin dadkaasi hadda marka muxuu u suubin waa ficil nooca oo kale ah oo intuusan gudbin shakhsigani dawladda Itoobiya u gudbin in sharci ahaan ay u bannaan tahay in kale muxuu guddiga kale u suubiyaa ama uu kala tashin way xereelayaa qaranka adiga ninkan in la dhiibay waxa noo sheegtay Itoobiya iyadoo dadkii ku wareersan yihiin oo meesha qaladka ugu weyn ee dhacay ay ka mid tahay dawladda waa la aaminay waa runta mas'uuliyadana saaran inay shacabka iyadoo war u sheegto waana wax jira haddii dawladdu ay warka jira ee runta iyada dadkeeda u sheegi weyso in dadku ila kale oo aan xaq ahayn ama xalaal ahayn ama cadow aan ku tilmaami karno ay runta ka soo qaadanayaan waxyaabaha taasna ay dhibaato ku keeni doonto mataqaana mustaqbalka waxyaabaha la yaab kalsoonida dawladda waxyaabaha shacabka Soomaaliyeed ee qaarkood aad ula yaabeen waxa ka mid ah markii ugu horeysay ee saxaafaddu ay weydiiso arrinkani golaha wasiirada xukuumadda in ra'iisul wasaarihi su'aashii jawaabteeda uu ka dafay taliyana nabad soo gitay asagoo yiri afka qabtay yarina waqti munaasab meel munaasab ayaa lagu sheegaya runaanta meesha waxa nooga cad in qiilka ay keeneen 6 bishii September marka aysan gacanta ugu jirin waxyaabaha kale oo la yaab kale waxa kamid ah dawladdan iyo dawladdii ka horeysay in aysan lahayn kayd documenti heshiiskii hadda ay leeyihiin waxa noo fasaxaya sharci ahaan waxa inaan ku dhiibno sarkaalkan ona lafta ah qoraalka documentigeeda maysan hayn markaas kayd oo documenta ana dawladda tii ka horeysay maysan hayn documentigan waxa soo gudbiyay maamulka dawladda Ethiopia oo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cumar ayaa soo gudbiyay documenta noocaas inay isticmaalaan arrintaasna waa arrin aad u foolxun sideen ku ogaanay in ninkan la dhiibay waxa muhiim ah cidda warkana siisay marka hore isha ugu horeysa warka laga helay oo ah ninkani in Ethiopia loo dhiibay waxaan ka ogaanay Soomahan lafteeda in Ethiopia noo sheegtay runtii markuu uu weydiiyay wariyihii Al Jazeera ra'iisul wasaaraha arrinkaasi waa loo diiday jawaabteedii cidda ugu horeysa ka maqalno waxa ah wasiirka boostada ee Ethiopia asagoo la hadlayo VO af Amhariga cidda kale aan ka ogaanay wuxuu ahaa General Gabra oo aan naqaano wadanka Soomaaliya wuxuu ka yahay cidda saddexaad aan ka ogaanay wuxuu ahaa madaxweynaha ismaamulka dawladda federaalka Ethiopia marka shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in sarkaalkan la dhiibay
dowladdii la siiyey ayaa sheegtay iyadoo dowladda Soomaaliya ay ku dhiiran weyday ay ka cabsootay in shaqsigaas dhiibto sababta waxay u arkayeen inay tahay arrin ceeb ah qalad ah qofka bini aadanka markuu qalad iyo ceeb galo isma sheego marka laba marba waxa halka kaaga muuqanaysa in la toogtay oo dowladdii ay laba dabin ku dhacdo ah dabinka koowaad oo ah in ay ogeyd inay gardarro ku dhiibtay nimankay u dhiibtay ay ka hor hadleen iyadoo awoodi weysay inay shacabka u sheegto waxa dhacay inay la soo hor istaagaan oo runta sheegaan iyo Ethiopia oo haddana sidoo kale faafisay sawirro la xiriira isla ninkii oo xaqiijinaya inuu ninkaasi yahay ninkay rabeen labadaas arrinba ma ku tusinaysaa in dowladda Soomaaliya meeshaasi ay muujisay in ay mataqaanaa waxaan ku tilmaami karna inay tahay مسؤولية weyn horan kugu sheeg waxaan kugu iri qodobka ay u cuskunayaan heshiiska ay u cuskanayaan ma ahan ku iri document dawladda u yeeli ma waxa laga soo gudbiyaan ku dhahay ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia laga soo gudbiyay documentigaas wuxuu noqon karaa document been ah iyadoo laakiin ay sheegteen shakhsiyaadkii saxiixay waxyaalaha aan aad kula yaabo waxa kamid ah كوبيجيني ما هيستان waxyaalaha aan la yaabo waxa kamid ah oo mar walbana dhaca shakhsiyaadka mas'uulka ka ah xukuumadaha Soomaaliya heshiisyada ay wadamada kale la soo saxiixdaan ma hayaan wadankii ay hayaan kale sababtay sidaa u suubinayeen waxa kamid ah haddii tixraacay diiday haddii dambiye ay soo galeen ay ka yimaadaan British in ummadda Soomaaliyeed ogaato waxyaabahan ay ku dhacayaan cases badan ayaa jiro arrinta badda kala kamid ah documentiga cid hayso Soomaaliya ma yaal marka dawladda way dhacday hore u dhacday dawladda Kenya way haysa laakiin dawladdeena ma haynin markii arrinka la isku qabsaday waxay yiraahdeen documentigan ayaa haysanaa waxa noo saxiixay dawladdiina aad inuu run yahay xataa lama marka inta badan marka waxa leedahay madaxda burburisa maadaama heshiisyo qaldan ay galaan ha in tixraac la waayo in tixraac oo berito lagu maxkamadeeyo arrintaasna aad ay muhiim ugu tahay shacabka Soomaaliyeed sawirada la faafiyay ma ahayd kuwa aad dareemayso in loogu talagalay in la tuso dawladda Soomaaliya inay ku ceebowdo waxay sameysay sawirada sorto run ahaantii waxa loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed oo in loo tuso sawir ah xukuumadda shalay cid isku halaysan meesha ma joogto xukuumadda shalay doorateen oo aad wadaniga oo nadahisay Ethiopia ma rabno waa taasa macnaheedu waa kana ku qoos qaata waa isku dir laakiin waxay ku xiran tahay habka aan u maarayna hadaan nahay shacab aad iyo aad way maxaa lagu macnayn karaa marka qaanuunka caalamiga ah ama kan dalkeena marka la eego dhacdadan oo ugub ku ah taariikhda Soomaalida in qof la dhiibo Soomaaliya loona dhiibo dal ajnabi ah qaanuunada caalamiga ama keena marka laga hadlo run ahaantii haddii wadan oo nin fal amni darro ka galo oo u tallaabo wadan kale laba nooc ayaa loo raadsadaa qofkaasi inay dawladdaasi dambiga ka galay in loo soo celiyo aan ka dhaxgalay ninkan hadda anaga dambi Ethiopia oo ka galo gaar ah loo sheegin marka laga reebo inuu ONLF yahay oo dawladdu ay tiri ONLF waa argagixiso ninkan waxaan loo sheegay inuu dambi ka galay Soomaaliya ma ogin in Soomaaliya ay xabsi ku leedahay Ethiopia in kale sababta Ethiopia lagu dhibay hadda anagu ma fahmi karno anaga ku soco qaanuunka anaga waxaan fiirinaynaa dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya u yaalo waxa ku jiro cutubyo ka hadlaya oo la leeyahay Universal Human Rights Declaration of Human Rights ka ku jiro macnaheeda haddii shakhsi aan ku iri uu dambi wadan ka galo laba dariiq ay u martaa in shakhsigaasi wadankeeda dambi loogu soo celiyo dariiq waxa way haddii wadanka uu ninka joogo iyo dawladdu dambi ka galay heshiis uu ka dhaxeeyo heshiiskaasi inuu yahay heshiis sharci ah waxay ka codsanaysaa warqad ay u qoranaysaa codsi ay u qoranaysaa dawladda ay leedahay shakhsigaasi dambigaasi wadankeena ka galay ayaan u baahanahay waxaan ka rabnaa dawladda federaalka ah haddii heshiiskaasi siday ku andacoonayaan cidda ay warqadda u soo qortay dawladda codsi u soo qortay in lagu wareejiyo sarkaalkan yuu ahaa mas'uulkaasi processku meeshu ka bilowday mas'uulkaasi waan u baahanahay processka
waxaad ka wadaa macnaha Ethiopia mar hadday rabto inay Soomaaliya qof ka soo qaadato waa inay sharci soo martaa ama codsi soo dirsataa waxaan aan tixraac ku suubinayo dawladda ayaa waxay tiri heshiis ayaa jiray oo ah inaan isdhaafsan karno dadka nabadiidka sidii ku andacoonaya maadaama ay ku andacoodeen dadka heshiiskaasaa jiray war codsiga Ethiopia ay ku soo codsatay warqadii yay ka soo codsatay mas-uulka ay ka soo codsatay iyo dokumentigaas waa loo baahan yahay Soomaaliya loo daayo haddii taas waa sharci ahaan haddii laakiin labada dawladood aysan ilqaad ka dhaxaynin waxaa loo maraa laga codsadaa Interpol marka processkii macnaha ama dariiqii loo maray labadaba dawladda ma aysan caddayn qodka telefoonkaan siinaya haddii aan heli karno alo assalaamu calaykum halo waya waa soo noqon doonaa marka baarista aad samaysay iyo xogta aad hayso maxay bidhaaminayaan marka laga hadlo dooda dawladda ee ah dawlad nagu horeysay ayaa saxiixday heshiiska maxay ku fasiraysaa guud ahaan markaad fiiriso waxay ku fasiraysaa in heshiiska la sheegayo uusan wax raad lahayn mise waxay ku fasiraysaa in ay un ahayd shacabka un wax unha loo sheego yani wax xaqa loo sheegay run ahaantii arrinkan wuxuu iftiiminaya dhowr arrimood oo iftiiminaya waa mid ugu horeyso ma ahan arrin sharci oo dastuuri ah oo baarlamaanka lama horgeyn xataa documentiga waxaan ku yidhi dawladda Soomaaliyeed ma bahaysan baarlamaan in la geeyo iska daay oo kalinka shanaad ayaa laga keenay sharci ma noqon karto waxaan u fasirin karnaa oo kaliya dambiga kaligeena ma lihine dawladdiigo naga horeysana waa leenahay annagoo dhan waxaan nahay qaacimada wadani dawladda ka horeysa xilka ma hayso haddii xitaa lagu eedeynayo hadda mas-uuliyadda dalka hadda dawladdaasi iyo ragga ka midka ahaa wax xil oo ay dalka ka hayaan ma laha qadka telefoonkaan siinaya assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhow walaalkay hore u gal magacaagana ku bilow وعبد الحكيم كتب الله يجزيه waxaad moodaa kala qayb qaato xagga farsamada moodaa codka inuu ugu liito sideed u aragtaa go-aanka dawladda ay qaadatay iyo falcelinta dadweynuhu Soomaalida ay sameeyeen hallo raalli ha walaalo xagga farsamada waxaan ka codsanayaa in telefoonada ay naga hagaajiyaan waa ka xunnahay waa cilad xagga farsamada ah assalaamu calaykum hallow ma wanaagsan hadii maqlaysaa waa ku maqlaya aniga kulleyba xoogaa iska fogee baalka sabacada kugu dhow TV-ga nagala socotaa hallo raalli hada waa waxaan raalli haw maxamed waa cilad xagga qofkaas waa ismaqli weyne kulleyba maxamed marka cadaalad ma tahay haddii aan idhaahdo dawladdu waxay istusisay in ay maslaxad dalka ugu jirto tallaabada ay qaatay hadday noqoto haba sababto in naf qof Soomaali ah la dhiibo run ahaantii dawlad sideeda waxay waaye dawlad walba adduunka ka jiro waxa ugu horeeya inay daryeesho waa shacabkeeda waxa kale waxa ka imaanayaan gadaal haddii ay shacabkeeda ay dantooda ka talin waayaan iyo danahooda iyo sharafkooda ay ka talin waayeen taa mid ka horumarsan ma jirto oo muhiimsan marka haddii leeyihiin dantii dalkan ka talinaynaa dalka wuxuu leeyahay shacabka ayaa uu ku dhisan yahay shacabkaas waa in la raadiyaa daryeelkooda iyo ilaalintooda labadaba marka waxaa leedahay dawladnimaduba waa ilaalinta muwaadinkaaga xuquuqdiisa inaan cidna ku xadgudbi karin ma is leedahay Ethiopia waxay awood u yeelatay in dawladda Soomaaliyeed ay ku cadaadiso waxa ay doonto xitaa haddii ay noqonayso wax halis ku ah ama halis gelinaya maslaxadda Soomaalida marka aad qiimeyso dhacdadii ku dhacday qalbi dhagax horta taariikhdan waa silsilado soo socday waaye dhiibitaanka qalbi dhagax ugu muusan horeyn qof shakhsi Ethiopia loo dhiibo laakiin qaran Soomaaliyeed laakiin oo federal ah laakiin hal su'aal inaan isweydiino iyadana mudan tahay waxaan ognahay heshiis in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay wada galeen oo ah isagoo markaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sharci ahaan iyo sharaf ahaan u arkayay in haddii dawladda Ethiopia wax dana Soomaaliya ay ka soo gasho ay ka rabaan oo kale in aysan marin maamul goboleedyada taasi dawladda Ethiopia way aqbashay sida ay warsaxafadeedka iyo heshiisku ku qornaa
taa darteed ayay dowladda Ethiopia waxay uga faa'iideysatay arrinkan taas oo ay sharaf xumo laakiin ay ugu timid asaga marka hore sharaf ayay u ahayd laakiin shalay wixii sharaf u ahaa maanta waxay u noqotay sharaf xumo ayay u noqotay madaxweynaha runtiina waxay ahayd in uu aad uga fiirsado ayay ahayd arrinkani uu sidaan hore kugu sheegaba uu la tashto dadka sharciga inuu la tashtay way halo assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacaaga waa soo dhawow ولا المقاعد حاليا ظاهر. daahir qadiyadana ka hadlaynay go-aanka dowladda iyo falcelinta dadweynaha sideed u aragtay sida dowladdu uga jawaabtay marka laga hadlo tabashadii dadka والله marka hore ayaan loo adiga iyo wiilka way dhaafay magaciisa aqoonyahanka dhalinyarada ee kula fadhiya waan salaamay ka qadnoola salaan kadib arrintan runtii arrin saameynteeda laba noqotay muddadii hadda u dambeysay 2 usbuuc ahayd marka waxa weeye waxaan dhihi karaa marka koowaad horta de waan u tacsiyeenayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed marna waan u hambalyeynhayaa qaabka sharaf badan ay uga dhiidhiyeen yaanaha dhacdadan foosha xun ee dhacday markaan u dhaadhaco gudaha runtii waxaa jirta dawladdu khalad waa dhacaa wayna sixi kartay laakiin waxaa cad sidii uu kaga dhawaajiyey kula fadhiya ninka dhalinyarada ah dawladdu waxay ka baqaysay wixii ku dhacay ee ay samaysay oyna awood u lahayn in ay isku dayda inay shacabka qariso waxaa ceeb noqotay in dawladdii ay wax u dhiibtay ay u sheegto waaye midda labaad waxa weeye kow dambiyada ay adiga waa barnaamijkaan waqtigaan ugu gaaban ma isleedahay adiga ka muwaadin ahaan dawladdu si mas-uuliyad leh ayay arrintan uga jawaabtay way ku qancisay maya mas-uuliyadda ay kaga jawaabtay ama sharciyadda ay kaga jawaabtay waa mid runtii iyadana ceeb ku ah shacabka Soomaaliyeedna meel ka dhac ku ah misaal waxa kugu ah mesela golaha wasiirada marka aan ka soo qaaday ugu dambeeyay go'aankii ay qaateen bisha 6deeda waxay sheegeen inay heshiis ay kala saxiixdeen 2 maamul goboleed marna la sheegayba inay 2 qabiil yihiin inay dawladdu adeegsatay kaliya waxaa ku filan haddii heshiiskaas dawladdu ay ihtimaado oo ay tiraahdo kaasaan wax ku meel marinaynaa in ay dawladdu ogolaato badii la saxiixay inay ogolaato dekedihii la saxiixay oo ay sharci noqdaan waxyaabihii ka horreeyay oo dhan baa imanaysa marka waa maasan tahay waqtigaan ugu yar kulleyba dad xildhibaano aan la hadalnayna oo si gaar aan uga hadlayna waxay sheegeen xitaa dukumentiyadaas laftooda in laga codsaday inay baarlamaanka keenaan dawladduna ay ku fashilantay oo hadda 2 jeerba baarlamaanada 2 baarlamaan la hor istaagay arrimahaas marka kulleyba meelo kale uga hadli doonaa arrinkan walaalkay soo hadlay waxaan daarinka aan ku sii darsan lahaa haddaad fiiriso war-saxaafadeedka ay soo saareen 6dii bishii September qodobkiisa ugu dambeeyay oo 7aad wuxuu leeyahay waxaan dib uga fiirsan doonaa heshiisyadii ay dawladdii naga horreysay ee gashay isla markaana waxaan waafajin doonaa dastuurka taa marka waxaa kaaga muuqato in aysan laftirkooda go-aanka ay sheegayaan inaysan ku qancin way kan ay fuliyeen aysan ku qancin ayaa inooga muuqato marka muuqashadaas marka laakiin aku dara waxa la saxay ma ku jira waxay fuliyeen heshiiska ay taasi ayaga ayaa ka jawaabi doona marka taasi marka hadday ayaga ku qanci waayeen yanagu qasbin shacab ahaan in annagana ku qanacno haddaan ku qancin weynina inaan noqono dad qaran dumis ah ama dawladda mucaarad ku ah maaha ayaga ayaa horteena ku qanci waaya aan kaba soo qaadno in dawladdu ay maslaxad qaran u aragtay qaadista tallaabadan oo ay abuurayso iskaashi xagga nabadgelyada ah sida lagu doodayo labada dal u dhaxaysa Ethiopia marka laga hadlo arrinteedu ma arrin amaan ku taxalluqdaba oo hadda sida wax u dhaceen marka la xiriiriyo in goboladan ay ka qaadan jirtay oo gobolada hadda dadka maamulada ka jirana kolleyba dadka laga dhiibi jiray laakiin markii ugu horeysay qaran Soomaaliyeed ama calanka Soomaaliyeed hoostiisa ama caasimadda Soomaaliyeed qof Soomaaliya laga dhiibay ay noqotay marka ma kula tahay arrintani in ay tahay arrin ay Ethiopia rabtay oo iskaashi xagga amaanka ay ku noqon karto oo Ethiopia ku qanci karto mise qadiyadeedu waaba ka fog tahay wax la xiriira amaanka Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhaxay ayaan loo qof kasta Soomaaliya waxaan shaki ugu jirin
in qarannimada Soomaaliya ay caqabad ku tahay dowladda Ethiopia maantana ku tahay shalayna ku tahay ilaa ay dowladeena dhexe Soomaaliya ay burburtay weligeedna ku ahaan doonto laakiin waxa qarankooda dumiyay waa inaga haddaanan Ethiopia waxyaabaha ay gudaha waddanka Soomaaliyeed ay shakhsiyaadka ay adeegsatay iyo qaababka waddankeena aan lala xisaabtamin ma noqon doono qaran raaligelinta Ethiopia waxa shacabka uga muhiimsan inaan Ethiopia la xisaabtano ay waddanka iyaga wax ay doonto aysan ka subin karin iyo shakhsiyaadka ay adeegsato in la farfiiqa shacabka loo farfiiqa si aysan mas'uuliyadda shacabka Soomaaliyeed uga qaadin si qaranka Soomaaliyeed u dhismo waayahay shalayna waxa xusuus ah kolleyba dadka way ka warqabaan taariikhda dadkii dalka dumiyey qabaa'ilka ahaa Ethiopia shidaal soo siisay soo hubaysay saasay dalku dumiyeen dhinaca marka laga fiiriyo Ethiopia qadiyadeeda qarankeeda inay ilaashato waxa ayay u martay in Soomaaliya ay iska celiso ama wax rabto u geysato laakiin dad Soomaaliya soo horkacay oo qarankeena dumiyey Ethiopia intay xamar timid librariyadii iyo dokumentiyadii iyo dawladii iyo wasaaradihii iyo dalkii ma burburinin marka laga reebay gadaal ka timid laakiin wixii waxa sameeyo dhan waa Soomaali eedda marka aan Ethiopia inta badan eedaynayno ma waanay u muuqanaynin inaan nahay dad qarinaya iyagu dambigay galeen jecel inay dad kala dush u saaraan run ahaantii Ethiopia mar walba way ku jirtay arrinkan laakiin dadkan waxay noqdeen oo kaliya tool ay adeegsadaan marka tool ay adeegsadaan kaliya ay noqotay magaca Ethiopia xamar ku timidna ma ahayn hogaamiye kooxeed waxay ku timid magac dawladeed ayadoo la leeyahay dawladdaas ayaa lagu kaalmeynaya institutionka ayaa nila dhisaya saas ayay ku timid marka waxaad moodaaba dawladnimadeena in Ethiopia tiraahdo dawladda ay dhisayaan laakiin ay dawladnimo noo dhisanayna si kala burburisaba in Ethiopia aysan ku qaracdo inay qaran Soomaaliya u dhisto wax kale laakiin xaq ay u leedahay inaysan Soomaaliya qaran u dhisin sida iyadu danteedu ay ku salaysan tahay danteeda ka aragtay laakiin dadka Soomaaliya ee aaminaya ka sugayay soo qaladka iyagu malaha annaga sideenaba annaga Ethiopia isku dan ma noqon karno haddii aan niraahno danta Ethiopia horumarinayna oo teena gadaal u dhiganayna qaran ma noqonayno maxaad ku tilmaami kartaa waxa cusub oo ay arrintan qalbi dhagax ku soo kordhin doonto masiirka dawladnimo iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabi doonaan hogaamiyaasha dawladooda runtii aniga waxaan dhigi karaa in kastoo maaragtay shakhsigan dhibistiisa iyo dhibaatada hadda macaa ku jira aan ka warqabin ay xun tahay haddana dhanka kale markaa ka fiiriso waxyaabo badan ayaa laga faa'iiday waxaa ka mid ah in shacabku ay baraarugaan ay la yimaadaan la xisaabtanka markay la yimaadaan jawaabtii ay dawladda siisay aysan ku qancin in dawladda ay tiraahdo qodobka toddobaad hadda war saxafadoodkooda wuxuu leeyahay waxaan ka fiirsan doonaa in heshiisyadii hore loo soo galay dib dastuurka ayaana waafajin doonaa marka dawladda waxay ogaatay in shacabkeedu uu xisaabin karo taasna way gabagabadii aan joognaa waan gabagabayn doonaa hal su'aal aan noo hartay aan ka hormariyay waxa jirta marka laga hadlo Soomaalidu waxay tiraahdaa mahmaah aad u arxan daran oo ah geeridu waxay ku fiican tahay geel jira iyo nimaadan garanay qadiyada arrintan ee ugubka ah ee taariikhda Soomaalida ku cusub ee ummadan midnimadeeda iyo qarnimadeeda dhaawacaysa ayaa laga yaabaa dadka qaar markay ka hadlaan in la yiraahdo dawladdu misaati oo looga dhigo in qadiyadan la yiraahdo hal qof shakhsiya maad qaranka dhan u duminaysa iyadoo qofkaas uusan u socon dawlad dumine oo u socdo inuu ka hadlo arrintan inay tahay arrin taariikhi ah waxay kula tahay halkaas mahmaahda markaad u eegto ma waanay ku tusinayeen Soomaalidu inaysan isku arxamaynin ilaa ninku ay isaga taabato oo gurigiisa la soo galo ama naftiisa ama walaalkii ama ehelkiisa la taabto maahana inuusan ka nixin dadka kale ee Soomaalida ay ka fog mayna ka muuqanin mahmaahda ah geeridu waxay ku fiican tahay geel jire niman aqoon run ahaantii laba dhacdo xanuun badan waa dhacday run ahaantii shakhsigan la xiray xanuunku ugu horeeyay wuxuu soo gaaraya ehelkiisa xaaskiisa caruurtiisa waalidkiisa iyo walaaladiisa soo gaaraya run ahaantii ma fiicno in la yiraahdo maamadaasi oo kale oo ah maaragtay geeri waxay ku fiican tahay nimaad aqoonin iyo geerjire ku fiican tahay laakiin
waxaa kasii xun dadka mahmahdaas samaystay ma waanay kuu muuqan inaysan isku arxamayn iskuma arxamaya laakiin waxaa kasii xun shaksigaas la sii xiray dhibaatada iyo sumcad xumada iyo karaama darrada dadka ummadda soomaaliyeed loo geystay ay u geysatay dowladda Ethiopia ninkan waa shaksi laakiin 14 milyan ayaa karaamo iyo sharaf xumo ayaa loo geystay oo ah in wadankoodii dowladdii ay aaminsanayeen inay dantooda ilaalinayso in laga qaatay qof iyaga ay ku dhici waayeen inay sheegaan ay dowladdii qaadatay sawiradeeda idaacadaha ka hadlayeen waa nala dhiiba iyagana ay aaminsan yihiin waxba ma sheegi karno karaamo xumadaas oo ummadda Soomaaliyeed soo gaartay ayaa kasii muhiimsan aniga shakhsigan la xiray ayaan qabaa laakiin ma dhahayo maxay qofka marka arintan ka xanuunsan waayo taas marka shacabka ina qofka ka xanuunsato iyo qarandubi shaqo isku malaha Soomaaliya isku malaha waayo su'aasha ugu dambaysa marka waa gabagabeynayna waa maxay taladaada iyo tusaalahaaga ku aadan in madaxweynihii ilaalin lahaa sharciga dalka ee ahaa shakhsiga ugu sareeyay ee shaqadiisu ahayd inuu sharciga iyo qaanuunka dadka u ilaaliyo ilaa hadda uu aamusan yahay dadkuna ay ku eedeynayaan inuu arrintan ku lug leeyahay maxay taa macnaha ay ku tusinaysaa run ahaantii aniga xal waxaan u arkaa dhacdadan hadda dhacdadii ugu horreysay ma aha haddii aan xal sugan ama waara rabo in laga gaarana waa in laga bedelaa qaabka xalka loo raadinayo maxaan ula jeedaa taas waxaan ogsoonnahay in hadda baarlamaanku ay ku mashquulsan yihiin in mooshin ay ka keenaan xukuumadda ama madaxweynaha taa marka maxay keenaysaa haddii mooshinka ay ku guuleystaan baarlamaanka waxay keenaysaa in shakhsiyaadkii iyo dembiyadii iyo qaabkay u dhaceen ciddii ka dambeysay ay la tegayso xukuumadda shacabka Soomaaliyeed ay wax badan ay ka qarsoomayaan aniga marka waxaan qabaa marka in guddi madax bannaan oo aan ka tirsaneyn xukuumadda kana tirsaneyn labada gole in la magacaabo ayadoo lagu xulanayo guddigaasi laba arrin waa mid ugu koowaad guddigaasi waa inay aqoon u leeyihiin shaqadan loo tirsanayo labo waa in ay noqdaan dad taariikhdooda lahaayo aan siyaasad shuqul ku lahayn haddaba markay helaan guddigani baaritaan loona ogolaada guddigan cid walba oo arrinkani khusayso dhiibistii sarkaalkani ay fududayso inay wareysan karaan dokumentiyada in la heli karo markay soo helaan dhabta xaqiiqda meesha ka jirto inay labada golo hor keenaan waxay soo heleen markaas cidda ay dambiga ku cadaatay lagu fuliyo haddii xukuumadda tahay iyo haddii uu yahay madaxweynaha sidaas darteedna maxkamad lagu soo saaro taa marka maxay daawo u tahay laba shayba daawo ayay u tahay waa mid ugu horeysa ummadda Soomaaliyeed waxay ogaanaysaa wadankeeda sida loogu adeegto iyo cidda u adeegto labo haddii dowladda la ceeriyo ma noqonayso dowlad sidii dad shakhsiyaad lacag la soo siiyay shakhsiyaad kuraas raadinaysa ay ceeriyeen waxay noqonaysaa arrin sharci ah oo shacabku ay ku qanacsan yahay aniga taas ayaan xal u arkaa waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed xuseen cadow ayuu ahaa oo falanqeeya arrimaha siyaasadda isla markaana degan magaalada London oo barnaamijka habeen wanaagsan caawa marti noogu ahaa intaynu mar kale ku kulmi doono hadduu Allah awood u ogolaado barnaamijka kan xiga waayaan la xuseen cabdi iyo dhammaan bahda barnaamijka soo saartay iyo xagga farsamada dhamaanteen waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh